in ka badan 70 askari oo ka socda dowladda Uganda isla markaana horudhac u ah ciidamo gaaraya 400 askari kuwaasi oo qaramada midoobay ugu tala gashay inay ilaalo gaar ah u noqdaan shaqaalaha qaramada midoobay waliba xarumaha qaramada midoobay ku leedahay magaalada Muqdisho ayaa waxa laga soo dejiyay garoonka caalamiga dalka ee magaalada Muqdisho. ciidamadan oo watay libis gaar ah oo loogu talagalay qaramada midoobay ayaa markii ka soo degeen garoonka caalamiga dalka waxa ku soo dhaweeyay madax ka tirsan qaramada midoobay waliba saraakiil kale. waxaa milicsasho mudan in qaramada midoobay sanadkii hore ansixisay in ciidamo gaar ah oo ka socda dowladda Uganda kuwaasi oo ka madax banaan ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM in la keenayo gudaha dalka Soomaaliya si ilaalo gaar ah ay ugu noqdaan xarumaha qaramada midoobay ku leedahay magaalada Muqdisho kadib markii weerar qorsheysan ay ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen xarumaha qaramada midoobay ku leedahay magaalada Muqdisho. ciidamadani soo gaaray gudaha dalka Soomaaliya ee ka socda Uganda kuwaasi oo loogu talagalay inay ilaalo gaar ah ka noqdaan xarumaha qaramada midoobay waliba shaqaalahooda ayaa imaanaysa xilli horay qaramada midoobay xarumaha ay ku leedahay magaalada Muqdisho iyo waliba shaqaalaheeda weerar kala duwan oo khasaare ka soo gaaray lagu geysay gudaha magaalada Muqdisho. maxamed ibrahim gabow Royal TV Muqdisho.